سودو شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku bilaabayaa insha Allah ducooyin oo sida caadada ah markasta aan ku bilowdo si Ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadkeena uu aqbalo. ducooyinkaas aan ku bilaabayo waxa ugu horeeyo dad badan ayaa xanuunahayo meelo badan laga soo xiriiray gudaha wadanka Mareykanka iyo dibaddaba. waxaan calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaan dadkaasi oo kala duwan oo kala xanuun duwan aan ugu duceynaynaa duco khaas ah. aamin ila dhaha u niyeysta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadooda Ilaahay inuu aqbalo. waxaan إلهي سبحانه وتعالى ويديننا بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أذهب البأس رب الناس، اللهم اشفهم، أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم إنا نعوذ بعزتك وبقدرتك من شر ما يجدون ويحذرون. إله حنونك كقات، إله حنونك عافمات بوحة وقبدل، إله عافمات دقدق أهسي ددك حنونة خطرت هايو. إله سبحانه وتعالى دوذ أذاق عنتك هايو. إله الدوي، إله سبحانه وتعالى كن فيكون وحكو دويسا. إله كن فيكون أده حنونة النوع دونت نوع دونها هذا. إله أنت حنونسا أو حنونة دردران هاي ولي وسجون أصعد صدي نين سكرادا ولا يسوع شيء نقول الكيسة أو كريها نك كوضع الإنتان. إله كريها أنه ليسي إله حال يسوع شيء قبله حنونة خاصة كل عي أو جرك الرات كويا لنا يمسكح ذا المستقبل كذا. إله حنون كسرن كوضع قاد ضد يا حنون ذا كورونا فيروس كل عي. إله حنون كاسك قاد. إله أقبض العافمات بوحة. إله أقبض العافمات بوحة ودقدق شفاء كامل يا رب العالمين. dadka muraadka leh ilaahu muraadkeena noo wada sahal, ilaahu noo dedeji, ilaahu muraad alkhayr ka yeel. haddii waxaan weydiisanayna wax ka khayr badan uu jiro, ilaahu waxa ka khayr badan oo barakada leh ilaahu ugu bedel. dadka caruurta leh ilaahu caruurteena baariyaal ka wada dhig, kuwana dhegaysanayo, adiga ku dhegaysanayo, nabigaaga sunnadiisa raacayo calayhi salaatu wasalaam. ugu dambayntii qof walba kurba iyo culays haysta, ilaahu subxaanahu wa tacaala kurbada iyo culayska ka qaad. إله هديرتان كقاد. اللهم آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درسنا ما توحو كساب سنة هاي فضلك كوي طبعا معلومات أو عن شيء دونه شعبان كوكسو هذلنا إن لصومة فضلك أولي هاي أسبوع كهر. هذا وحن كهذا كوي طبعا معلومات أو بالولب إنات كصونت. هدي آد صونت بالولب شن فائدة آد هلي دونته. aan ka hadlaynaa ilaa 15 daqiiqo ugu badnaan aan ku soo koobaya. waxaan kaloo ka hadlaynaa kadib ilaahay idinkiisa salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. weli khaasatan waxaa meesha ku soo qoray qofkii 10,000 oo jeer nabiga ku saliya maalin walba muxuu helayaa. waa ka sheekaynaynaa iyadana. haddii waqtiga soo haro su'aalaha waa furaynaa. haddii oo waqtiga uu soo hari waayena markaasi waa iga raali ahaanaysaa. waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo oo dadka aan ugu bishaareeyo diinteena islaamka inay tahay diin dhammaystiran oo ilaahay uu dhahayo subxaanahu wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum. maanta fi suurati almaa'ida aayaddaasi suuratulmaa'ida ayay ku jirtaa. waa aayadda ugu weyn waaye. علماء قاركو سي او تلمامان sababta waxay tilmaamaysaa diin dhameystiran oo waxba aan ka maqneen. cid kale wax aad ugu baahan tahay malahan. wixii oo dhan diinta ayaad ka helaysaa. waxa laga rabaa oo kaliya 3 shay: inaad barato, inaad ku dhaqanto, markaad ku dhaqanto raaxada aad gasho nicmo waaye dadka kale inaad barto oo diinta aad u sheegto. diinta ku dhaqankeeda raaxo waa iyo nicmo. dadkan ku dhaqminna diinta
waxaa haysta dhibaato adduun iyo aakhiro. marka diintaasoo wax walba ay ku dhex jiraan aan ka hadlaynaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu dardaarmay maalmo kala duwan oo la soomayo, laakiin waxaan rabaa maanta inaan idiin xusuusiyo 11 maalmood oo rasuulku uu soomi jiray, waana idiin sharxaya waxay yihiin. 11kaas maalmood haddaad daa'into, jirkaaga, maskaxdaada, quluubtaada iyo wax walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu abuuroo dhan, ilaahay wuxuu ka xoreynayaa dhib kasta iyo culays kasta iyo cudur kasta. qof fayow oo caafimaad leh ayaad noqonaysaa. weli waxaa maanta idinla sheergareynayaa tajribo oo gaalo samaysay soonka muslimiinta ay sameeyaan. maanta waxyaa badanaa idin sheegayaa, waana idiin dirayaa qofkii raba waxaas inuu soo baaro. waxaan idiin siinayaa jaamacad daraaso samaysay oo soonka ku samaysay. weli soonkaan soo sheegi doono kii ramadaanka isagoo mucjizo iyo karaamaad wato. waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaah yaraado mar kale, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa 11 maalmood oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku dardaarmay in la soomo bil walba. 11kaas marka maxay yihiin? isniin iyo khamiis inaad soonto. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix ah oo imaam albani uu saxiix yeelay ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ku dardaarmay, ama caaisha waxay tidhi uu soomi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam yowm الاثنين والخميس, maalinta isniinta iyo maalinta khamiista. markaasaa waxay tidhi wayaquulu wuxuu dhihi jiray innahumaa yowmaani, waa 2 maalmood oo fiihimaa oo dhexdooda qaal ahaada yowmaani waa 2 maalmood oo markaasi maxaa dhacayo? tucradu waxaa la soo bandhigaa fiihimaa alacmaalu cala allaahi, 2daas maalmood dhexdooda ilaahay ayaa acmaasha loo soo bandhigaa. markaasaa rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi fa uxibu, waxaan jeclahay an yucrada camalii, camalkeyga ilaahay in la tusiyo, wa ana saa'im, anoo sooman. ka waran, camalkaagaa la qaadayaa maalinta isniinta, ilaahaa la tusinayaa. waxaa la leeyahay gabadha la yidhaahdo farxiya cabdullaahi, ilaahu camalkeeda waa kan. markaase malaa'igta waxay leeyihiin ilaahu waxaan kugu daraynaa camalkan hadda aan soo bandhigayno, gabadhaasi haddeertaan way sooman tahay. haddeertaan way sooman tahay. fiiriya, way ka duwan tahay in camalkaaga ilaahay la hordhigo. marka ilaahay markii loo bandhiga camalkii oo la yidhaahdo wayna sooman tahay, camalkaagoo markii hore fiicnaa, ilaahay subxaana wa tacaala 3 kuu samaynaya. 1, waxaa dhacayso acmaashaadii xasanaadkiisa ilaahay inuu barakeeyo. 2, soonka maalintaas aad soogtay oo camalka la dhigaayo in kor lagugu qaado, manaha darajo oo kore in lagu gaarsiiyo. 3, wixii xumaan ahna in lagaa tirtiro. isniin kasta iyo khamiis kasta waa. marka waxaan sheegi doonaa guud ahaan, marka haddii 2 maalmood aad ka soonto usbuuc kasto, waxay noqonaysaa 8 maalmood. marka meeqaa soo hartay? 11. 3 soo hartay. aaw 3 maalmood kale sheekh. 3 maalmood kale waxa waaye xadiis ayaa jiro abaa hurayra yiri radia allahu tacaala canhu, awsaani khaliili, saaxiibkeygaa wuxuu igu dardaarmay, nebigu ula jeeda calayhi salaatu wasalaam, inaan 3 maalmood bil walba aan ka soomo. xadiis kalena nebigu wuxuu yidhi calayhi salaam, abaadaru la hadlaya, haddaad soomaysid, ramadaanka lagama hadlayo, maalmaha kale haddaad soomaysid 3 maalmood yaysan kaa tegin uu dhahay. 13 bil walbo, 14 iyo 15. magacaa loo bixiyey, nebiga wuxuu u bixiyey ayaamulbiid, maalmaha cadcadka ah. maalmahaas waxa waaye bishaa buuxsanta, iftiinkeeda xoog badan. maalmo dhulka aad uu iftiin yahay waay, meeshii aad joogtaba. marka bisha shacbaan saan u bilowno,
bishaara idin hayna weli waqtigaan haysanaa 3 maalmood goormay ku beegan tahay maanta bisha waa 11 khamiista berito waa 12 marka waxay ka bilaamaysaa goorma jimcaha waa soomi kartaa maalintii rasuulka uu dhaho hala soom haddii jimco ku beegnaato xitaa waa soomi kartaa jimcaha sabtiga iyo axad 3 maalmood waa soomaynaa waa sunna nabiga calayhi salaam ka dardaarmay dhowr axaadiisu kaga dardaarmay xadiiska abaa hurayra xadiiska abu dhar macnaa qof kale ayaa wuxuu ku yidhi sum haddaad soomaysid maalinta 13aadka maalinta 14aadka maalinta 15aadka bil walba ah 3 markaa ku darto 8 aan soo sheegay waa 11 kaasi marka waxaan rabaa 4 way wada wadaagaan 4 faa'iido 4 halna waa sir gaara oo ku qarsoon 3 maalmood isxiga ayo maalintii waa 24 saacadood maalin kale ku dar 24 saacadood waa 8 iyo waxaan la jeedaa waa 48 haddaad ku darto 24 waa 72 saacadood marka waxaan rabaa tajribo oo cilmi la sameeyay idin sheego marka hore asraarta idin sheego asraarta ku jirto maalmaha oo la soomayo khamiista iyo isniinta waxay gaar la tahay camalkaaga ilaahay loo bandhigayo waa 1 2 nabiga calayhi salaatu wasalaam hadhow waxaan ka hadli doonaa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii raba inuu arko calayhi salaatu wasalaam culummadu waxay sheegeen 3 sifo soonkaa laga helaya 1 inuu weyneeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ixtiraamo 2 in sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga shakhsi ahaan inuu u weyneeyo uu ixtiraamo 2 way waa mudan yahay laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana 2 in sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noolaysiiyo noolaysiyo markii la yiraahdo 2 macno waay 1 hadday tahay sunno aan dadka aan ku dhaqmin inuu dadka tusiyo sunnadan oo la dayacay oo uu noolaysiyo oo uu soo saaro oo dadka uu tusiyo oo uu muujiyo hadda soonka 3 maalmood oo kale dadka badanaa ma soomaan dadku waxay tilmaamaan khamiis iyo isniin laakiin badanaa kama hadlaan culummada laga yaabaa inay soonto ama marmar inay ka hadlaan laakiin dadka ma caadaystaan 3 maalmood lama caadaysto Soomaaliya tagay muddo asaas u dheereen waxaa arkay dadka badankooda oo khamiis sooman laakiin maalinta 13aadka 14aadka 15aadka wax sooman waa yar yihiin marka 1 waxaan dhahnay rasuulka shakhsiyan in loo weyneeyo 2 in nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa la noolaysiiyo oo ah maalmaha soonkeeda iyo 3 waxaa asraara meesha ku jirta haddaad samayso oo hadhowna aad ku kabi doontaa saliga nabiga oo aan sheegi doono ina midda 3aad waxa waaye in sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aad barato marka culummadu way kala qabiyaan mararka qaarkood marna halay ka dhigaan marna waxay dhahaan siirada nabiga nolosha nabiga baro marna waxay dhahaan macnaa way kala saaraan waxay leeyihiin nolosha nabiga calayhi salaatu wasalaam oo siirada ah baro iyo markaas waxay dhahaan axkaamta iyo sunnooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo si gooni ugu dardaarmay baro marka waa shaqo waay halkaas sababtoo waxaadan ogeyn kuma dhaqmi kartid waa cilmi u baahan tahay marka intaasi marka waxaan rabaa hadda inaan soo sheego marka maxay gaar la tahay 5 asraar sheegaya 5 asraar aan idin sheegaya 1 waxay gaar la tahay camalkaaga in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo bandhigayo marka waxaad ogaatay 7 maalmood oo maalmaha ilaahay abuuray inay jirto maalin khaas ah oo waxaad samaysay xumaan ah waxaad samaysay wanaag ah waxaad ku hadashay maanta ninaa wuxuu dhahayay maaragtay hebel oo dhintay waa cafiyey dembi weynuu iga galay waxaan dhahay nasiibaad leedahay sababta haddaad cafisay adna ilaahay wuu ku cafinayaa haddaa cafin weysana xaqaa u leedahay laakiin qofkaas hadda ilaahu hortagay ciqaabuu ku jiraa mar hadduu dulmi galay waxaa la yidhi 2 maxkamadoodaa jirto laakiin maxkamadda weyneed oo ah tii qiyaamaha aan wada naqiinay iyo maxkamad yareey haddaa dhahdo oo kale
qofka xukuna ku dhacayo oo lagu ciqaabayo qabriga gudihiisa ama jannuu gelaya rawda min riyaadi aljanna uu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka haddaad dulmi samayso haddaadan hadda xalaaloobin wuxuu kugu ciqaabta waxay kugu bilaamaysaa ama aan qofkii uusan ku cafin ciqaabta waxay kugu bilaamaysaa markaa qabriga aad gasho tii weyneedna waa ku sugaysaa oo ah xisaabti laakiin markaad dhimataba ilaahaad hor taagan tahay ilaahay subxana wataala xaggiisa aaday xukunka markaasuu kugu bilaabmayaa markaas ama qabriga lagugu cadaabo ama qabriga janno ku gal calaa kulli xaal tan koowaad maxaan dhahnay acmaashaada marka maalin waxaa jirta oo 2 maalmood waxaa jirta oo gaar ah 7 maalmood ka mid ah oo acmaashaada ilaahay la horgeynayo hebel ama heblaayo ina heblaayo waxaasay samaysay wiigaan marka culammadu waxay dhaheen 2 maalmood haddii la bandhigayo marka macnaheedu waxa waaye isniinta marka la bandhigo acmaashi haddana waxaa ka soo wareeganayso talaado arbaco haddana khamiista ilaahay subxaana wa tacaala camalka la hordhigaya ilaahay wuu og yahay laakiin waa shaqo malaa'igta loo sameeyey malaa'igta hadda waxay leedahay waxaanaan ka qornay beentaan uu sheegay waxaan uu xaday waxaan uu dhacay kii khayrka badnaana malaa'igtu waxay leeyihin 3 maalmood ama 2 maalmood talaado iyo arbaco intaasoo salaaduu sameeyey intaasoo soonuu soomay haddii dadka maalin ku dhaafka sooma oo kale intaasoo qur'aan uu akhriyey intaasoo wardi uu akhriyey marka sirta koowaad waxa waaye acmaasha marka haddaad fahamto sirtaasi qof hagaagsan oo toosan aad noqonaysaa is ilaalinaya indhihiisa ilaalinaya carabkiisa ilaalinaya intuusan hadlin dhagaha ilaalinaya intaysan hadlin intaysan dhegaysan oo waxaan ma dhegaysan kartaa ama kuu bannaan tahay ma xalaal baa meel intaysan aadin ay ka fiirsanayso ama intuusan aadin hadduu wiil yahay marka intaas waa kow sirtaasi ogow maanta 2 waxay sabab u tahay sunnada nebiga calayhi salaam oo la noolaysiiyo waxay sabab u tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ku bilaabo nebiga oo la weynaysiiyo waxay sabab u tahay waa midda labaad nebiga oo la weynaysiiyo waxay sabab u tahay nebiga inaad aragto oo riya aad ku aragto waxaan sheegi doonaa hadhow marka saliga nebiga la akhrinayo asbaabo keeni karto ama ficilo haddaad samayso oo culummada saalixiinta ay tajribo ahaan u sameeyeen laakiin sharci ma aha waxaan ula jeedaa markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala si toos ah meeluu ku sheegay ma ahan ama nebiga calayhi salaam si toosa meeluu ku dhahay ma lahan oo uu dhahay haddaa waxaa samaysan waa ay arkaysaan laakiin hal arrinuu noo sheegay rasuulka man ra'aanii faqad ra'aanii xaqaa saasuu dhahay qofkii aniga arko riyo igu arko si dhabuu ii arkaayaa oo jannadii aan ku wada kulmaynaa marka ahlu jannaa tahay nebiga haddaa aragto marka maanta siraan sheegaynaa oo nebiga lagu arki doono insha allah dhammaanteen aan rabno inaan aragno ilaahana waafajiyo marka kow waxaan dhahnay tacdiimu rasuul calayhi salaatu wasalaam waa sir oo ku jirto oo ah soonka markaad soomaysid 11 maalmood aan soo sheegay in aad weynayso nebiga calayhi salaatu wasalaam 3 oo sir ku jirta waxa waaye markaad ku dhaqmaysid sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam khaasatan maalmahaasi oo soonka ah weli si guud ah caafimaadkaaga xadiisaa jira suumuu tasixu sooma waad caafimaadaysa qofba qofkuu ka soom badan yahay waa ka caafimaad badan yahay qofkuu ka soom badan yahay wuu ka caafimaad badan yahay marka marka caafimaadkaasi waa la ogaa markii hore laakiin waxaan sheegayaa 3 maalmood gooni ahaan oo loo soomo 72 saacadood waxaa jirto sir weyn ilaa dadka qaarkooda waxaan rabaa inaan idinkugu bashaareeyo dhakhaatiirta qaarkood waxay dhahaan coronavirus maba ku dhacayo 3 maalmood qofka sooma 3 maalmood isku xigto muxuusan ugu dhacin marka iyo coronavirus qofka inuu ku dhaco ilaahay qadartiisa waa gooni laakiin maxaa keena jirkaaga coronavirus maadaama uu yahay virus khatar ah markuu soo weeraraba neef qabasho iyo qufac iyo waxyaalaas marka jirka markuu soo weeraro ma iska caabin karo ma iska celin karo laakiin jirka qaarkood wuu iska celin karaa dad waxaa jirta hortooda ma aragtay hawadii jermiska viruska soo qaaday laakiin jirku iska celiyey haddii
immune systemkaaga soomaali aan ku sheegay difaaca jirkaaga hadduu xoog badan yahay cudurradoo dhan waa iska celin kartaa siraa jirta marka hadda nebigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofkii 3 maalmood soomo 3 maalmood ayaamulbiid qofkii soomo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu xifdinayaa oo inkastoo acmaasha saalixaadka oo dhan markaas samaysa ilaahay uu ku xifdinayo oo maalmahaasna rasuulka si gooni oo asxaabta u dhahay sooma maalmahaasi haddaad soomaysaan maalmahaas sooma u dhahay calayhi salaatu wasalaam sirta saddexaad marka waxaa waaye caafimaad keliya ma ahan nidaamka difaaca jirka qofka waxaa dhacayo isbedelaa ku dhacayo haddii 72 saacadood qofkaasi uu wax cunin waxna cabin maxaa lagu sameeyey marka nin la yidhaahdo professor Walter Longo oo jaamacadda South California University SCI la yidhaahdaa SCI oo macalin ka ah ayaa tajribo sameeyey isaga iyo inta la shaqaynaysay waxay ku sameeyeen si fiican u dhegeysta arrintan waa muhiim waxay ku sameeyeen bini aadanka iyo dowligay ku sameeyeen oo meel qaarkood isaga dhow waxayna ku sameeyeen waxay baahi waxay ku dileen maaragtay bini aadankana waxay dhaheen soon xayawaankii kalena 3 maalmood waxay ka ilaaliyeen wuxuu cuni jiray iyo wuxuu cabi jiray khaasatan 72 saacadood waa 3 maalmood soonkana waxay u tilmaameen sida islaamka oo kale oo ah qofka markii waagu u bariyo ilaa habeenkii laga gaaro uu wax cunaynin waxna cabaynin jirka marka isbedel uu sameeyo marka afar waxyaalooda jirka uu sameynaya marka maxaa ku socdo jirkaasi sawir ayay ka qaadeen isbedelada iyo waxa ku dhacayo resultiga soo baxay natiijada idin sheega halkaanaan ku hayaa natiijada qofkii rabana inuu sii akhriyo professorka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Walter Longo muslim ma ahan laakiin wuxuu sugay 3 maalmood oo la soomo 4 faa'iido inuu leeyahay immune systemka ana difaaca jirkaaga wuxuu dhahay horta waxaa dhacaya jirka markuu baahi ku dhaco markuu baahoodo 12 saacadood sidaa 12 saacadood soonnaa waxaan cunin waxna cabin wuxuu bilaabaa wax la yiraahdo saving energy jirka in tamartii jirka uu keedsan markuu bilaabo marka rejuvenation wax la dhahayaa bilaabmayo oo ah nidaamkaaga difaaca oo jirkaaga ku jiro ayaa wuxuu sameynayaa kow wax alla wixii oo dhiigga cadcad oo damaged macnaheedu waxa waaye oo halaabay flash out uu sameynaa macnaha jirku ka saaraya recyclena la dhahaa af Soomaaliga waxa waaye qashin qubid wuu qubaya wuu daadinaya waa kow si fiican u dhegeysta wixii unugyada dhiigga cadcad oo halaabay aan wax difaaci karin wuu daadinaya 2 kuwa duugoobay unugyada dhiigga cad oo duugoobay flash out uu sameynaa wuu daadinaya jirku ka daadinaya ama qaabkaadi ama qaab saxara ah jirku dhan uu ka saaraya waa 2 waay kuwaas waa kuwii duugoobay waay kuwii horena waa kuwii halaabay waay 3 toxin wixii wasakh iyo sun oo abuurmay jirka ayaa jirkii dhan u ka saaraya flash out uu ku sameynaya 4 immune waxaan la jeedaa dhiig cad oo cusub oo awood badan oo faster ah oo dhaqso badan markiiba xanuunka difaacayo ama viruska difaacayo uu soo saaraya markaasaa wuxuu leeyahay dhakhtarka jirkii qofkoo dhan wuxuu noqonaa nidaamka difaaciisa nidaam cusub oo diyaar ah oo difaac degdeg sameeya allahu akbar cilmigiiya wuxuu taageeraa wixii diinta ay sheegaysa ummad yahay waxaana laga raba keliya maxaa waaye war diintiina ku dhaqmo waa caafimaadaysaan
diintiina ku dhaqmo waa caafimaadaysaa. sirta afraad marka oo raba inaan idiin sheego oo shantii siraan tirinaya. sirta afraad oo aan raba inaan tii caafimaadka taas meeshaan ugu soo tegey. haddii aad soonto 3 maalmood waxaa jiro jirka nerviskiisa qofka wuu degayaa. markuu dego wuxuu noqonayaa qof brain systemka reflection sameynaya, macnaha maskaxdiisa aaday u fikiraysaa, macnaha talaaban ku degdegayso. qofka hadal ma ka soo baxayo oo degdeg ah, qof xasiloon oo degan uu noqonaya. wuxuu ka jawaabayaa marka 3 maalmood tajribo oo cilmiya la sameeyey oo ah waa 3 maalmood ama 3 habeen oo nuurka ah oo iftiinka ah. waxaa la yidhi waa waqtiyada ugu crime-ka badan, dembiyada badan. xitaa waxaa la soo ogaaday 3 maalmood cilmi ahaan waqtiyada dadka isdilaan, dadka markii oo iscelin waayaan ay isdilaan, marka qofka controolka ku yaraado. laakiin qofkii 3 maalmood sooma oo 3 maalmood jirka ku dhacayo starvationka, baahida, oo energy saving sameynayo, brain systemkana reflection, tafakur badan u sameynaa. qofkii ma degdegayo, wax kuma hadlayo markiiba, qof xasiloon uu noqonaya. soonkaasaa dejinaya. waa qaybta 3aad waa markaas. waa deganaanta oo shaqsi ahaan iyo oo maaragta qofka u degayo. sirta oo ugu dambaysa oo 5aad ah, sunnada badan markaa raacdo aad samayso. hadda fiiri 11 maalmood bishii markaad ka soonto waxaad ku dhowdahay haaf adoo sooman oo kale. waxaad u dhowdahay soonkii siyaamu daa'uud. nabigu waa la weydiiyey soon ugu fadli badan ramadaanka kadib ma noo sheegi kartaa? markaasuu dhahay siyaamu daa'uud qofkii kari karo. see waayaa la yidhi. markaasaa wuxuu yidhi waxa waaye maalina qofku wuu afurayaa, maalina wuu soomayaa, 15 maalmood wuu soomayaa. kaasaa ugu fadli badan. qofkuu ilaalinayaa, ruuxdiisuu ilaalinayaa, qalbigiisuu ilaalinayaa, maskaxdiisuu ilaalinayaa, jirkiisuu ilaalinayaa. dhakhtar muu u baahnaanaysa. iyadoo kooban. waxaan ku soo koobayaa marka qiso yaab badan. nin oo marka qisada waxa waaye soonka faa'iidadiisa oo dhan. ileen waxaan ka hadlay marka hore soonka guud ahaan caafimaad. nin ayaa London yimid. wuxuu u yimid xanuun oo kaga dhacay cudur caloosha ah. cudurada caloosha oo weli kuwa oo seriouska ah. marka dhakhtarkii wuxuu yidhi in qaliin lagu sameeyo waa calooshaada. waxbaa ka soo baxay. waxaasi in meesha laga tirtiro waayo oo qaliin lagu sameeyo. shaqo badan aan ka qabana, laakiin riskina wadnahaagu gaarsiinaya jirkaaga. marka waxaan rabaa inaad baxdo oo ciddaadii aad u soo dardaaranto, sababtoo ah 50-50 waa in lagu guulaysan karo. marka ninkii wuxuu ku laabtay Masar. markuu Masar ku laabtay waxaa isku soo aaday markuu laabtay waxay Shacbaan dhamaadkeedii bishii Ramadaan ku dhalatay. marka inuu soo laabtay usbuuc kadib la socday, usbuuc kadib inuu soo laabtay ahayd. marka bishii Ramadaan wuxuu sameeyey dhakhtarkana waxba telefoon uma dirin, waxba lama xiriirin. dadkan muslimiinta meel kasta ay joogaan isku dhaqan waay. wuxuu dhahay bishii Ramadaan inay kaa tagto oo soon la'aan kugu dhacdo, hadda fiiri aad u xanuunsan la socaya. ani taas ma samayn karuu dhahay. marka wuu joogay, wuxuu go'aan ku gaaray bisha ciidda kadib inuu baxo. bishii Ramadaan uu dhamaystay. markuu dhamaystay kadib ciiddii markuu la ciidaystay ilmihiisii wuu dhudhunkaday, wuu macsalaameeyey, haddaan dhintay cafiya. wixii wuu dardaarmay. London uu ku noqday. London isbitaalkii dhakhtarkii markuu keenay, markuu la kulmay wuxuu dhahay ninyahow waa soo daahday, cudurkii inuu ka weynaaday laga yaabaa. marka waxaan kugu sameynayaa faxsi cusub, baaris cusub oo aan baarayo cudurka intuu gaaray. bal fiiri waxa dhici doono. anaga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabaa oo keliya marka la dhahayo waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja. qofkii ilaahay ka cabsado ilaahay makhrajuu u furayaa. cabsida ilaahay waxaa ka mid ah wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray inaad samayso. ilaahay wuxuu amray inaad samayso. noloshaadoo dhan janna ku jiraysaa.
cajaa'ibta diinta macaanka ee leedahay taasaa ka mid ah raaxo waxaan kaloo aan ku darayaa hadda ay soonka 3 maalmood isku xigto oo la soomayo dhakhaatiirtu waxay kaloo ku dareen qofka aging macnaha qofka maba duqooba tasali macnaha jirkiisa jir cusub uu noqonayaa qofka jovan uu noqonayaa talaani haddaan ku hadlo qof dhalinyaro ahaanayaa qofka hadda dadkan waa jecel yihiin weligood inay dhalinyaro ahaadaan soonkaa keenayo marka calaa kulli xaal asraar lixaad waa 6 ka dhigo qofka inuusan duqoobayn inkastoo cibaadada qofka markuu cibaadada badsado ma duqoobayo sheekh la yiraahdo Abu Shujaac oo kitaabka Abu Shujaac leh sheekhaas wuxuu gaaray 120 iyo dhowr sanadood wuxuu u ordi jiray nin dhalinyaro ah markii la weydiiyana oo yiri sheekhow da'da wax yar oo muuqaalkaaga laga dareemayo maahine waa 120 sano dhaafay maxaa keenay waxna waa aragtidaada waa caadi urintaada waa caadi maqalkaaga waa caadi anaha dhaga adeeg kuma dhicin carabka hadalkaaga waa caadi ma aragtay socodkaaga iyo orodkaaga waa caadi salaada waxaad u tukanaysaa nin ka yar salaada ka fiican uu soo koobo wuxuu idin soo koobaa u dhahay xubnahaygaan macsi ka ilaaliyey ilaahaan u addoomiyey ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ii xifdiyey waa intaas waa waxaad aan ka hadloono dhan waxaa waa ilaahay ma rabtaa inuu ku xifdiyo cuduradan laga cabsanayo oo dhan inaad ka badbaado ma rabtaa samee wuxuu nabiga samayn jiray calayhi salaam iyadoo kooban ninkii wuu soo laabtay waa la baaray dhakhtarkii wuxuu dhahay qolkan soo gal warqadii sawiradii wixii markuu soo qaaday wuxuu dhahay hal su'aal ku weydiin karaa haa uu dhahay ma ninkii ii yimid waqtigaasi ayaa tahay ama nin walaalkiisaa tahay uu isaga soo dirsaday wuxuu dhahay niyow nin xanuunsana ahay maxaa igu ciyaaraysaa uu dhahay ninka mariidkaa dhahay waa xanuunsanahay maxaa igu ciyaaraysaa waa ninkii yaan ahay uu dhahay wuxuu dhahay waa igu ciyaaraysaa ma tihid caloosha markaan taataabanaya muu jeeda haa waxaan kaa taataabanayay calooshan si loo furay oo loo xiray iyadoo calaamad aysan ka muuqan calooshan shaqaa laga qabta dhexdeeda dhakhtarkii u tagtay uu dhahay dooda aan soo koobo markii ay kala bixi waayeen ninkaan uu dhahay warniyoon qof baa u tagtay isagana wuxuu war qof uma tagin wasadankaas maalmood wax kale oo shakhsi aan ku maqnaa markii dambe wuxuu dhahay markaas niyo rumu ku sheegaa soddonkaas maalmood waxaan sameeyay waxa muslimiinta ay sameeyaan bisha ramadaan ma maqashay haa uu dhahay muslimiinta maxay sameeyaan they fast markaasuu dhahay ramadaanka dhan waa anoo xanuunsan is ogaa anaga xoogaa maadaama diintan ku adag tahay masaarida qaarkood oo soomaalidoo kale diintii ku adag yihiin soomaali badan saasaa jirto oo ku dhawaadhihiis war waa xanuunsan tahay ha soomin uu suumaya waa xanuunsan tahay sidaan fadhi ku duko maya uu istaagayaa istaaguu ku tukanaya markaasa ilaahay natiijada uu siinaya marka ninkii wuxuu yidhi niyow bishaaran ku hayaa sawiradan meeshan ku yaalo xanuunkii oo khatarta ahaa oo calooshaada hadhow wadnahana u gudbi lahaa iyo sawiradan cusub xanuunka dhan maba jirabo jirkaaga wax dhan waa ka baxay waxaanoo dhan calaamadii uu tutusiyey kan ma lahan cidaa ka shaqaysa waxaan ula jeedaa cidaa meesha gashay oo ka shaqaysa markaasaa wuxuu yidhi dhakhtarka ramadaan u tagay dhakhtar ramadaan la yidhaahdo aan u tegay uu yidhi horta intaasi waxaan ku soo koobayaa hadduu ilaahay yidhaahdo arrintii ahayd fadliga 3 maalmood oo la soomayo iyo 2 maalmood oo la soomayo waa isniin kasta iyo khamiis kasta iyaysan ku dhaafin bil walbana 13aadka 14aadka iyo 15aadka aysan ku dhaafin intaas markaan kaga baxo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aan kusoo gabagabeynaya saliga nabiga waxaan u soo qaatay maanta hadda ku hor waan ka sheekeeyey rasuulka allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay markuu ka sheekeynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam weyninkiisa meelo badan lagaga sheekeeyey rasuulka calayhi salaam xitaa suuratu muxamed ayaa jirto muxamed rasuulullah laakiin سورة الأحزاب إلهي وحيري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما horta martaba weyn la gaarsiiyay rasuulka cid kale la gaarsiiyay malaha ilaahay iyo malaa'iktiisaba waxay ku saliyaan nabiga calayhi salaam macaani fara badan ay leedahay u naxariistaan duco maaragtay malaa'ikta u duceynaysa rasuulka dambi dhaaf u weydiinaysa isagoon dambi rasuulka calayhi salaam macsuum ah intaasoo dhan
markaasaa waxaa la amray muslimiintii waxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima nebiga calayhi salatu wasalaam ku saliya dushiisa naxariis ilaahay u weydiiya nabadgelyo ilaahay u weydiiya marka waxaa laga dhigay qayb ka mid ah salaadii shanta waqti waxaan akrinaa allahuma salli wasallim allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed marka laba nooc waxaa jirta oo salliga nebiga calayhi salaam noocna asalawaat alibraahimiya la yidhaahdaa waa sida soo aroortay oo ku cad nusuusta axaadiista nebiga calayhi salatu wasalaam noocna culummada ayaa ijtihaad samaysa waxay dhahday salliga hadafkiisa waxa waaye nebiga in loo weydiiyo naxariis iyo nabadgelyo marka haddaad ku soo koobta allahuma salli si wax badan aad u dhahdo allahuma salli wasallim salli macnaheed ilaahu u naxariiso wasallim nabadgelyo si haddaad ku celceliso way u dhigantaa allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed kama sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim way u dhigantaa ma aha xuruuf ahaan laakiin macno ahaan waxayna rabaan culummadaasi qofka inta ugu badan inuu gaarsiiyo dadaa 500 gaarsiiyo dadaa 100 gaarsiiyo carabkaa la rabaa in la edbiyo carabkaa la rabaa in xanta laga joojiyo warka macnaha lahayn in laga joojiyo marka maxaa nin ubaya ibnu kacab la yidhahdo rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam markuu u yimid wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahow aniga waa wardigaa uu dhahay ninkiyaa dhahay wardiyaan akhriyaa waana ducaystaa uu dhahay waxaan rabaan ilaahay weydiistaa marka wuxuu dhahay qayb ka mid ah maaragtay adaan kugu saliyaa qayb ka midna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan weydiistaa waxaan rabo marka wuxuu yidhi saliga nebiga calay salaam ilaa inteen ka dhigaa intee jeer aan kugu saliyaa saas waa macnaheed waxaan ka hormarinayaa marka maalin sayidina cabdiraxmaan ibn cawf oo la socdo nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi annagoo wada soconno oon wada sheekaysanayno ayaa nebiga calayhi salatu wasalaam hal mar dhulka ku dhacay sujuud silma firaan waa istaagay waa sugay cabbaar u sujuudsanaa isagoo farxay oo qoslaya markaas uu soo kacay markaasuu dhahay alxamdulillah wuxuu dhahay yaa rasuul allah ma waxbaa soo degay haa uu dhahay jibriila ii yimid wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan kuu sheego darajo sare oo lagu gaarsiiyo oo ah qofkii kugu saliyo hal mar ilaahay subxaanahu wa tacaala 10 jeer uu ku salinaya allahu akbar markaasaa wuxuu yidhi man sallaa calaya salaatan waaxida sala allahu calayhi 10 qofkii hal mar igu saliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala meequu ku salinayaa 10 ka jir marka 100 jeer akhris allahuma salli wasallim calaa maxamed اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد بقول جالسيس إلهي سبحانه وتعالى توبانو كل فنايا من غير غني كن نحريس إلهي كسينايا وكن نحريس محيطها نحريس تحوى إلهي وكفر الباب ذا خير كأوطن نحريس ساسوا معنى هذا إلها كان حيا إله دو كان حيا كلو باهنته إنه كان حيا إله هدو كان نحو يا كلا أباهنتا حد كلا أباهنتا مالها مركا حديث كاسي أبي مركا وحويري ماشي عن كاسي وحوده انتي مركا رسولك وحويري انت دون تقول هاي رسولك عليه السلام مركا سويري كورن هدي دعاء ذي مركا وردينا يمالون بالدعاء ذي أن كرقو سدح ميلاد لبو أذيقنا سدح ميلاد حل أنكو وصلي dhahay taasna way fiican tahay haddaad ka badisana way ka sii fiican tahay nin caqli badan u ahaa haddaad ka badis way ka fiican tahay ilaa ninkaa wax badan u rabaa markaasaa wuxuu yidhi ka waran haddii nusna aan duco ka dhigto oo ilaahay waxaan raba weydiisto nusna aan adiga kugu saliyo markaasuu yidhi taasna tii hore way ka fiican tahay haddaad intaas ka ziyaadisana kaba fiican oo rasuulku weli intaa ka ziyaadisuu leeyahay nin caqli badan u ahaa waayo ka waran haddii 2 meelood adiga aan kugu saliyo hal meelna aan ducada ka dhigto waxaan ilaahay weydiisan lahaa wuxuu yidhi walaahi tii hore way ka fiican tahay haddaad ka ziyaadisana way ka fiican tahay haddaad ka ziyaadiso way ka sii fiican tahay markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuulallah su-aal maku weydiiya haa maalintoo dhan adiga keliya inaan kugu saliyo oo ducadii wax dhan aan iska dhaafo oo adiga keliya saliga nabiga calay slam aan kugu akhriyo ka waran idan markaasuu dhahay rasuulka marka yukfaa hamuk
ويغفر ذنبك شيخ سبد شمر وحي أضرب طورنا ويكفى همك وحوا وح على وحي علايس كسرنا أنا لقى قاضية هدي حنون تحنون لقى قاضية هدي الدين لقى جدايا هدي إلى من أنت إله إلمك وسينايا صلي النبي ده كويس رئيسنا مركاسي مركو أنت أصدهاي مركاسا وحورها مركاسي أجعل صلاتي ما رأيتي عليك كلها ما رأيتي صلاة معناها صلي أن كوجو صلينا أيو هذيك أن كوجو صلينا أيو دوش هذا وحن كده يا وردي جمالتي يوردن أنا halkaa marka waxaa laga qaatay culumada ee rasuulku wuxuu ogolaaday in maalintii oo dhan asaga lagu saliyo marka intee noqon kartaa marka lama oga marka waxaan rabaan ku soo gabagabeynayaa nin ayaa jirtay saliga nabiga calayhi salaam uu badiyey asaga iyo xaaskiisa la akhriyeen oo deyn lagu lahaa oo xabsi sugaya maalinta ku xigta sheeko dheer waaye laakiin waqtiga ay ugu dhamaaday ninkaasi oo xabsiga sugayey maalinta ku xigta inuu xabsi iska xaadiriya ahayd lacag badanna waa lagu lahaa ninkaasi saliga nabiga waxay bilaabeen salaada cishaha kadib salaada waqtiga salaatuleylka way wadeen asaga xaaskiis waxay ku heshiiyeen inay ahayd sababta xadiiskan ay soo xasuusteen in wax ala wixii culays ku hayo dhan xanuun deyn laga qaadayo salaada cishaha salaada markaasi ninkii yaa daalay marka saliga la waday marka hurdu dhacay riyuu nabiga ku arkay calayhi salaam waxaa loo diray nin governor ah inuu u tago oo uu dhaho nabigaa isoo diray wuxuuna ku amrayaa lacagtaas inaad bixiso ay iga guddo hadduu ku dhaho maxaa daliil ah oo calaamad u ah nebiga inaad ka socoto oo nebi maxamed ku soo diray calayhi salaam waxaad ku tiraahdaa xalay saliga nebiga aad akhrin jirtay nambarka ilaa 1000 meelahaas u gaarsiin jiray ninkaas lambarkiyaa kaa qasmay oo waa garan weysay nambarkii loogu talagalay inaad gaartay in kale adoo walwalsan aad seexatay cid og ma laha arrintaas adiga ilaah maahayn saas ku dheh markaad saa ku dhahdo waxaa ugu dartaa hadduu lacagta kaa bixiyo shafaacadeeda maalinta qiyaamaha anaa u shafaaca qaadayo ilaahay waxaan u weydiinaa jannadiisa inuu geeyo dembigiisana uu dhaafo ninka waagaa baryey subaxdii wuxuu aaday لكن وصل إلى آخرنا اللهم صل وسلم على محمد وحال آخرنا صلاة العشاء إلى وقت صلاة الليل أنت أسكم على كل حال صلاة الصبح كدي وحوتة جوفرنركي أو أما نكي والجها وحوش النبي إنه صادري وحال الريء وكأركي وأنا أمري إنه بحيو العج أنت أسلأك وكبحيو ومحكمة ده خادجة ووجود بيه العج تاس حيالها ومعجزوين كأوصل النبي إلى وعجائبته إلى ننكي ما حد عليه وحودا النبي وصادري إلا عقد نصيب بين إيجا قادن اسمها عدانا وحور وحا عدانا النبي وصادري وحنكون شيء أرين حالي كوكور عليه أو عدنا عن أوجين أو أذيك إله أسلوبتين محاوى أرين تاس لأن إله النبي جاء على رسولك عليه الصلاة والسلام النبي جاء محمد جاء إله وشيء جايه وحاد عليه مركاسي إلهي سبحانه وتعالى ووحياله صالحين تكون عنه النبي عليه السلام ضد يرى أركو أنا ضد بدل ما أركان إن كستو إمام قاركو سيد إمام مالك ليجري هبين والبو أرك جري وأنا صدق هذا وأنا شنطة أو أن شيء دونه ويا شن صفو هدي لغاهر النبي محمد عليه السلام ناريه كأركيسيد إن شاء الله وتجربة واي وعلومة ذي سومرت شنطة اسمه شيء هدو إلهي رادو marka ninkan marka wuxuu dhahay xalay saliga nabiga oo ku tirsanaa aad akhrin jirtay hal lambarkii uu ka dhumay adoo walwalsana seexatay wiligaana taas oo kale kuguma dhicin markaas wuxuu yiri ninkan run uu sheegay marka uu sugsu u dhahay bixin fariin kale uu isoo faray wuxuu dhahay hadduu lacagta ka bixiyo u sheeg inuu aakhira inuu shafaaca qaadayo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu weydiinaa inuu dambigiisa dhaafo oo jannadana uu galo lacagtii ma aha inuu siiyey laba ugu dhigay wuxuu ugu daray lacag kale oo mahad celin ah iyo shukr maxaa nin adoo dhooriya lagu arkay ka war sheeko kale waxaa jirto sheekh weyn oo caalim ah oo anay dhageyga aan ka maqlay gabar ardada kamid ahayd waxay dhahday sheekho xalay nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam
وقبل أدو يريهد عشان يتونجر إنه هذا مالينا وحيتري مركا أركا وحويري وبشاري الشيخ هذا مقعبو شيء شيخ وائل مي وفرحي مركا سام حويري سؤال مكوي دين كرا قبل ها النبي عليه السلام وأذقت إن الأركان وحن أمر صلي النبي إن أتبضيسه maalintii meeqaa akhrisaa gabadhi marka wax oo mucjizo sheegtay oo dad yar kaliya samayn karaan waxay dhahday maalintii 10,000 oo jeer aan akhriyaa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam allahu akbar 10,000 oo jeer maqlis ninkii yadaayad saxaabiga ahaa oo rasuulku dhahay calayhi salaam inta sadaa ka sii badis inta sadaa ka sii badis ilaa markii dambe uu dhahay wardigayga dhan haddaan ka dhigay ka waran wardiga dhan waa maalintii nabiga lagu saleynayo calayhi salaatu wasalaam gabadha waxay akhrisaa 10,000 oo saliga nabiga calayhi salaam ninka sheekha caalimka ahaa oo culimada waaweyn oo masaaridu ka mid yahay haddaan idin sheego magaciisa waa wada maqasheen sheekhaas caalimka markaas wuxuu yidhi waa isku yaxyaxay waa xishooday ardadii akhrinaysa intaas anaga xaggeen joognaa waa macnaheeda inaan intaas ka badinay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ku waafajiyo tawfiiq waa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waafajiyo inaad akhriso saliga nabiga aad u fariisato shan ee culummada tilmaamaan imaam maalik habeen walbu arki jiray nin sheekh ah iyadana gabar kala u timid waxay dhahday sheekhow waxbaa ugu dhacay ma garanaa inaad ii fasirtaan ama maxaa dhacay markaasaa waxay tiri anay habeen walbaa nebiga riyo ku arkaa sheekh gacantuu saas madaxa saartay allahu akbar habeen walba laakiin dhiba ay haystay dhahday dhiba ay haystay maxaa waaye inaan faraxdeeda ahayd may waxay dhahday xalay iyo habeen hore ma arkin nabiga calayhi salaam marka inaan kula tashtaan rabaa waxbaa igu dhacay wixii aan rabaa inaan ogaado adna aad tala isiiso wixii anay iska kee bedelayaan rabaa inaan kuu sheegay wixii oo dhan shan culummada wax badan ay sheegaan laakiin ani shanaan kusoo ururinaya waa culummada waa badan yihiin aan ka hadlayo marka magacyadooda ma soo wada qaadan karo qaar waxay yidhahdeen horta kulligii wax isku raaceen in nabiga calayhi salaam inta ugu badan aad ku saliso 1,000 ha ahaato 5,000 ha ahaato 10,000 ha ahaato macnaheedu waxa waaye bini aadanka iyo hadalkooda ka go ilaahay xus nabigiisa ku salay calayhi salaatu wasalaam culamo qaarkood waxay dhaheen saliga nabiga istikfaarta ka hormaray ama isla wad ilaahow dambi dhaafna ilaahay weydiiso adoo nadiif ah towbad buuxda keen marka koo maxay dhaheen culamada akhrinta saliga kathratu salaat ala nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga inaad ku saliso wax badan marka lama xadidin laakiin culimadu waxay dhahaan inta ugu badan aad gaarsiin karto inaad gaarsiiso marka waxa laga hadlayaa kumanaana laga hadlayaa ilaahu noo fudaydi laba tacdiimu rasuul calayhi salaatu wasalaam shakhsiyadaas nabiga inay kula weynaato inaad weynayso nabiga calayhi salaatu wasalaam cid kale inaysan kula weynaanin bini aadan ahaan waxaan ka hadlaynaa makhluuq ilaahay abuuray makhluuqoo kugu weyn agtaada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka tacdiimka waxaa soo gelaya dhahan culummada xub rasuulillahi sala alla alay slam nabiga inaad jeclaato markaad nabiga jeclaatana ruux markaad jeceshahay waa ku celcelinaysaa magaciisa marka inaad ku salayso alay slam taasaaba keenaysa hadda ninka markuu naaga jeclaado ma aragtay waa ishilmaamaya afkiisa waxaa soo maraya oo kusoo celcelinaya mar kasta gabadhuu jeclaa oo rabay inuu guursado wuu ishilmaamaya markaasaa waxaa jirta xigmad dhehayso qof walba wuxuu jeceliyu ku celceliyaa uu sheegaa haddaad jeceshahay nabiga calayhi salaam saliga akhri marka laba marka waa maxay tacdiim wa xub rasuulillahi sal slam nabiga inaad weynayso iyo jaceylkiisa saddex waxay dhaheen sheekhu jumca wuxuu dhahay siirada nabiga qofka inuu akhriyo maalin walba haddaad rabto nabiga inaad aragto siirada nabiga maalin kasta akhri waa saddex waa kow waa saliga nabiga 1,000 iyo wax ka badan intaa gaarsiin karto laba jaceylka nabiga calayhi salaam saddex siiradii nabiga calayhi salaam afar sunnada nabiga inaad noolaysiiso intaa kari karto waa marka salaadaha sunnada duko qur-aanka akhrintiisa maalin kasta waa sunna adkaarta akhrintooda waa sunna laa ilaha illallah waxdahu laa shariika lahu almulku walahu alxamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir 100 jeer wixii nabiga uu samayn jiray inaad noolayso oo sunna ah intii tabartaada kow saliga nabiga calayhi salaam laba jaceylka nabiga calayhi salaam saddex siirada nabiga calayhi salaam
afar sunnada nebiga inaad noolayso dhaqan ahaan shan waxay dhahaan culummada anaa raalli ahaado midda afraad waxa waaye sunnada nebiga inaad barato calayhi salatu wasalaam shanna inaad ku dhaqanto waa kala horumariyay siirada inaad akhriso maalin walba sunnada nebiga cilmi ahaan inaad u barato alle intaad gaarsiin karto saddex inaad ku dhaqanto in alle intaad gaarsiin karto hadda maanta oo dhan sunnada nebigaan baranayn tusaale ahaan waxa maanta meesha u fadhin oo dhan caawa waxay ahayd fadli weyn aad helaysaan aan wada helaynaa dhammaanteenna malaa'igana la joogto xadiiska wuxuu leeyahay haddii dad ay xusaayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xafathum almalaa'ika malaa'igta وغشيتهم الرحمة ملائكة إلهي سبحانه وتعالى أج جوجيسو أو نلا جوجت هذا نحرس إلهي راحة كجرنا ذات سوى مركز خير كده جسنا يستأدو دجنته شنطة صدار سماي سومالي والبو النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله هو أركيسا وعشان شق بضم وكسر علنا يكو كثرة الصلاة على النبي نات كسرس أنت كن أتجاسين كرتمالي والبو لبا رسولك جعيل كيس يوينين تيس إنه كل ويناد عليه الصلاة والسلام أنا إيمان أهان إن أذكر ما يستنتهي وح كون ومخلوق أو كخيمة بدن أو إلا هرمريو يستاهلوا مجرى مدحوينها هذا أما استار هذا قف دونها هذا سدح سيرة نلاش رسولك عليه السلام راح نلاش راح هو سيرة النبي عليه السلام إن أخرسته لقد كنت قانوكو أخرسه لقد كنت أخرين كرتكو أخرسه أفر النبي عليه السلام سنوين كيس إناد براتو شن إناد كل قنتو سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذب النبي وأركس عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال لا بس سؤال انفصح ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي سؤال اوكي walaalaha kale oo Facebook su'aal meesha ku weydiin kartaan laba su'aal Facebook iyo laba su'aal oo reer ummahatul khayr qolkooda insha Allah fadal هاي gabadha Maryam la dhahayo iyo yaa kale hal gabar kale bis gabadha private ka wadato iyo Maryam هاي gabadha Maryam ku soco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شيكم حيكون السليان أو صلاة النارية السجمة حيكون ما خالد آخر سكر عدد اسمه سوى سكوميت هدي أو أفحم وصنع عني عدكو آخر نسمع آخر سنة في الدار. حاولوا جدا صلاة النارية. عدكو هراوي أنا مركز حنوصل أصلي صلاتنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل وصوص لأخنا ولا أخسرنا يا جرت يقول هاي مركا وذات كلمة حوير وحبك من جدا وحاس مركا ما تخانا سعرنا تخانا معنا مايا صلى النبي عليه السلام لا بس الله أخريها داية واشياء صلوات الإبراهيمية ونوعية كلا دونها أصحابته يسور السي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وكوة qaybta labaad tan hadda aa sheegaysid waa igu soo celinaysaa ammaan kastoo nabiga la amaanayo اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب iyadoo kooban walaashay duco waaye oo nabiga saligiisa oo lagu duceysanayo wayna banaan tahay waxa hadda akhrisay way banaan tahay waa hadal af Soomaali hadda af Soomaali waxaad leedahay maaragtay nabiga kaleey salaam aan ku salinayaa salaad iyo salaan dhameystiran oo ilaahay inuu ku furfuro maaragtay kurbada maaragtay wixii xirxiran ilaahay uu ku furfuro saas way waxa dhahaysay af Soomaalidan ku af Soomaaliyeeyo marka duco kasto nabiga lagu amaanayo way banaan tahay marka tan kaliya ma ahan in la xadidaan diidaya waa duco waaye duco kasto way banaan tahay hawe nin sheekha wuxuu sameeyay wuxuu alifay maaragtay ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا رسول الله ألف صلاة وكن جار أن كوسلي نبيك مع ألف سلام كن جار وهل مليون
aan ku salaamay calayka yaa rasuula allah intaasuu ku celceliyey wuu ku celceliyey hooyadiisuu baray sheekhuu ka soo bartay hooyadiisuu baray hooyadiisu way xanuunsatay koomay gashay isbitaalka hal mar koomada markay ka soo baxdaa waxay dhahday alfi salaatin maca alfi salaamin calayka yaa rasuula allah wayna dhimatay marka waxaan ula jeedaa culummada waxay ijtihaad sameeyaan oo ammaanta nebiga ah way bannaan tahay haddii nebiga aan laga bixinaynin addoonnimadiisu way bannaan tahay okay qofka ku xigo insha allah calaykum salaam السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وين السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ waxaan weydiinaa maama ahay oo dikri badan akhriso alxamdulilah maasha allah ilaa ka aqbalo muddo badan qof ay weydiiyey wax yar raali ahaa sheekh maalinta jimcaha kumanaan ayaan akhriyaa maalmaha kale salaada kadib salaad walba oon tukado marka calaa kulli xaal qofkaasi wuxuu sheegayaa maalmaha jimcaha waxaa jira xadiis rasuulka calayhi salaam soo arooray oo tilmaamayo maalmaha jimcaha inay tahay sunno gaar ah in la ziyaadiyo saliga nabiga calayhi salatu wasalaam oo nebigaaba loo bandhigaa layidhi markaad akhriso felis oo kale maalinta jimcaha waa iska tusaale oo ku hadal qabsanayay markay kun jeer nebiga ku saliso nebigaa loo sheegaya waxaa laleeyahay felis ayaa kun jeer kugu salisay way kuu soo ducaysay way ku soo salaantay markaasaa felis waxaa u waajibaysa shafeecadii rasuulka marka qofkaas facebooka waxaan ugu bishaaraynayaa sax waayo waa sunno jamcaha si gooni ah in loo badiyo maalmaha kalena lama joojinayo iyagana waa lagu salinaya nabiga alayhi salaam haye sii wad marka su-aashaadi adoo raali ah okay maya sheekh male sheekh waxaan weydiin rabay muddo hadda laga joogo sanad aad u xanuunsaday marka dikrigiina waxaa maqlay in caafimaad iyo waa dikri jir laakiin waxaan kusoo aadiyay maadaama aan jirina dikriga intii ka badiyay anoo u niyoona in ilaahi subxana watacaala caafimaad igu siiyo nacam marka dikrigaas may noqonaa mid oo ilaahi subxana watacaala mise caafimaadka haddaan u niyeystay waa fahmi waxaas dhahay muhiimadii u dikrinaysay caafimaad waaye marka beritoole miisaanka ilaahay miyuu kabaa waa fahmi waaye shaqo okay marka hore markii oo aad ducaysanaysid su-aal aad u fiican waa ilahay qarab ku siiyo si fiican waa u weydiisay waxaan qof kale intaan hilmaaminaan kaa horumarinayaa oo weydiiyey tusbaxa ma banaaya in la isticmaalo qofkaas waa usoo koobaya ahaa tusbaxa 100% waa banaaya in la isticmaalo waxbaa kala welin cid diidi karta ma lahan cid daliil u haystana ma lahan tusbaxa inaan la isticmaali karin 100% tusbaxa waa isticmaali kartaa lambarka arrintaa isticmaali kartaa 500 ha ahaado ama 100 ha ahaado wax xadidaayo ma lahan adaa xadidaayo su-aasha walaasheeda hadda weydiisay ilaahay subxaana wa tacaala ku barakeeyo waa si fiican oo weydiisay niyadaada haddaad ku koobto caafimaadkaas inaad ku hesho oo ilaahay caafimaad kugu siiyo ajar ma ka helaysaa waxaa niyeysatay ku xiran tahay walaashay haddaad u niyeysato inaad ilaahay ku raaligelinayso isla markaasna sida imaam axmed uu dhahay oo kale isla markaasna ilaahay caafimaad uu kugu siiyo labadaba waa helaysaa ajarkii aad rabtina waad heli caafimaadkana waa helaysaa insha allah sababtoo aayad waxaa jirta oo dhehayso فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى waxaa laga faa'iideysta haddaad sadaqo u baxsato caafimaad ilaahay sadaqadaas caafimaadu kugu siinaa sadaqo haddaad u baxsato adoo shaqo raadina aad shaqo ku hesho sadaqadaas ilaahay subxana wataala markaa baxsato ilaahay shaquu kugu siinayaa marka camal kasto saalix ah waxaad u niyeysato ilaahay waa kugu siinayaa that's why qofka mu'minka ah wuxuu haystaa wax aan la tirin karin oo nicmo ah laakiin ma isticmaalno waxaa la dhahaa culummada waxaan dhahnaa qofka mu'minka ah oo diinta aan si fiican u fahamsanayn wuxuu la mid yahay qof gurigiisa ay buuxaan nooc kastoo dawo ah oo hadduu xanuunsado hadduu midkood xanuunka uu u qaato xanuunkaasi loogu talagalay uu cabo oo kale uu ku raysanayo saasoo kale ayay la mid tahay macnaa kitaabka qur'aanka guriga yaallo oo ma aragtay hadaytan waan ka hadlay akhrinta kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala kitaabka qur'aanka oo guriga yaallo waa wax weyn oo akhrintiisa ay waajib nagu tahay maalin walba inaan akhrino laakiin dadka ay dayacaan marka iyadoo kooban imaam axmed wuxuu dhahay shay laba shay waa loo niyeysan karaa hal camal macnaa laba shay ama camalka waa qaybin kartaa saasuu dhahay maalan sadaqa rabta inaad baxsato waxaa leedahay sadaqaan baxsaday waxaan u niyeystay labadeeda waalid iyo aniga iyo xaaskeyga iyo caruurteeda wuxuu dhahay insha allah wada gaaraysaa ilaahay subxaana wa tacaala waa kariim waaye thawaabkana
wax xadidaya ma lahan marka intaas waan kuugu bishaareynaya u niyeyso wax walbo markaad dikriga akhrisato waxaa dhada ilaahay uga caafi wixii kaloo aad jeceshahay u niyeyso ilaahayna caafimaadka ilaahay subxaana wa tacaala fii miisaani xasanaati ilaahay ha igu buuxiyo saas dheh insha allah caruurta badiya saliga nabiga calayh salaam ma ka helayaan ajar caruurta aad saliga nabiga u samayso ama dikriga akhriso ama qur-aanka akhriya ama xifdiya wax alle waxay sameynayaan oo dhan waxaa loo xisaabinaya labada waalid meeshaasna waxa waaye sir a ku jirto nimco faarax gabadhaasi oo kugu hadal qabsanaya raalli ahaa oo su-aasha weydiisay ilahay khayr ha ku siiyey su-aal aad u fiicnaa weydiisay aniga ku raaxaystaa ma idinka qarinaayo sababtoo ah ilmeygii anoo dhan habeenkii waxba aan wada akrinaa marka kuwa waaweyn iyagaa loo xisaabinaya laakiin kuwa yaryarka ah wax alla waxay akhriyaan oo dhan miisaan xasanaadka waxaa la yidhaha lidaalika qofba qofka ka ilmo badan yahay oo ilmahooda ka cibaado badan yihiin wuu ka khayr badan yahay ilaahayna waa kaga dhow yahay intaasaan ku joojinaynaa jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum